السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta aynu jecelnahayo meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada casharada imtixaanaha cashirkan waxaan ku baran doonaa ama aan cashar imtixaanaha ka diyaarinay Facebook shabakada Facebook ayaan waxaan ka diyaarinay casharo dhowr ah cashirkan waa cashirkii labaad waxaanan ku baran doonaa qaabka ugu fudud ee la isaga ilaaliyo dadka waxa xun soo dhigaya timeline-kaaga ama meesha ku khaaska ah ee Facebook-gaada. Dad ayaa jira tag kugu saaraya waxyaaba anshax xumo ah. Markay tag kugu saaraan asxaabtaada ama familkaaga ama qaraabadaada waxay arkayaan wixii lagu taageeriyay. Taguna ma ahan wuxuu la mid yahay inaad adigu postigan soo dhigtay ayuu la mid yahay. Halka meeshaada ayuu gelayaa hebel ayaa postigan soo dhiga waay. marka waxyaaba anshax xumada ah sideen isaga ilaalinaa. Cashirkan waa cashir muhiim ah runtii asxaab badanna ay isoo weydiiyeen jawaabtoodina waan u hayaa. Marka Facebook waxaan qaanad yaraan furaynaa waxaan tegaynaa setting Facebook aan tegaynaa. Marka Facebook setting tagna waxaan kasii dooraynaa timeline and tagging qayb la yiraahdo ayaan kasii dooraynaa. Waan kasii dooraynaa who can see things on my timeline iska daa who can add things to my timeline waa kaasaa meesha ugu horreyd yaa wax ku dari kara timeline-kayga ama wax soo dhigi kara. Tag waa la mid. Okay, who can post on your timeline. Okay, edit qaybta geeska u jeedin hadda qaanad yar furaysaa waa friends aad dooranaysaa. Friends waa asxaabta dhan ay wax soo dhigi kara. Hadday rabtid inay qofna wax kugu taageereen timeline-kaagana waxba aan la soo dhigin waa only me ka dhigaysaa meeshaas. Haddaan only me ka dhigto waxay la mid tahay aniga keliya ayaa wax soo dhigi kara timeline-kayga qof kale waxba sooma dhigi karo ay la mid tahay. Marka kadib waxaad dhahaysaa close. Sidaas ayaad isaga xirtay dadkii waxyaabaha xun kuwa anshaxa daran kugu taageeri jiray timeline-kaagana soo dhigi jiray mar walba hadda kadibna soo dhigi mayaan. Haddaad only me ka dhigto waxba sooma dhigi karaan. Waa inay adiga permission ama fasax ay ku weydiistaan. Markay kugu taageerayaan Facebook notification-ka oo kusoo dhigayaa oo permission lagu weydiinaya inaad gashay in kale. Kadib waxaad dhahaysaa delete ama block aad ku qabanaysaa soo dhigi message. asxaabta waxaan ka codsanayaa casharada si share gareeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.